السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawareysaan. Haddaba barnaamijkeena koobaad waa barnaamijkii subaxnimo waxaynu ku soo qaadanaynaa wararka ugu waaweyn ee ka soo kordhay dagaalka culus ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan. Saacadihii la soo dhaafay halkee xaajadu maraysa saakay waagu muxuu ku bariyay askarta la qararamsaday ee Mareykanka ah ee gudaha Mareykanka looga ooynayo aayatullaahiga Iiraan oo isaguna hanjabaadii ugu cuslayd u diray Trump iyo ciidankiisa. xaalka guud waa sidee maxay tahay sababta warbaahinta Mareykanka saakay uga wada hadlayaan kaartada iyo cilmiga cusub ee laga bartay dagaalka Iiraan, gantaalaha iyo droniska Iiraan oo la hodin la'yahay oo waxba laga qaban la'yahay. ciidamada Mareykanka ee Urdun iyo kuwa kale ee ku sugan dalalka Khaliijka oo wadnaha farta ku haya. Mareykanka oo isaguna kaga jawaabay weeraro culus. haddaba dhammaan warbixinadaas oo urursan oo xalay ilaa saakay wixii dhacaya ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa. inta aan ku jirnana wixii akhbaar ee soo kordhawaan idinla socodsiiyaan jecelahay barnaamijka inaan idinkugu soo gudbiyo. ugu horeyn Mareykanku waxay qirteen in askar looga laayay Urdun. waa qodobka koobaad oo saacadihii la soo dhaafay warbaahinta qabsaday. waxyaabaha la yaab kalaan markay idiin sheegaya Mareykanku waxay yiraahdeen 2 askari ah nooga dhimantay halkaas, midna waa la laayay 15 waa dhaawacantay. waa xogta Mareykanka ay sheegeen waay. Iiraanna waxay tiri wax ka jira ma jiraan, saldhigga meesha yaalay waa qararamsanay, waa saldhiggii Urdun ku yaalay oo diyaaradihii Mareykanka aan idiin sheegi jiray iyagoo baarkiman kuwii dagaalka inta loo tagay la qararamsaday, saldhigga la baabi'iyay oo Mareykanku inkiri jireen oo ay lahaayeen meesha waxba ma soo gaarin. waa beentood. Urdunna ay lahayd Amerikaan maba joogaba meesha soo weerarayaan. waxaan waa la isaga daba tagaa. maalin hadda maxay maree waxyaabaha la yaabka leh ee warbaahinta aan ka dhageysanayo waxaa ka mid ah waxay yiraahdeen gantaal Mareykanku maartay Iiraan leedahay ayaa wuxuu ku dhacay meeshii Mareykanku ay deganaayeen Urdun. iyaga Mareykanka dhacay Urdun maxay lahayd Mareykan meeshaan ma joogaba, Mareykan ma deganaa. marka waxa carabtan jugta looga gelinaa marnaba yeesha qalbigaagu soo gelinaa isleedahay hawnex oo Mareykankiiba meesha Iiraan waxa leedahay wax ka jira malab anaga Kuwait waxaan uma soconno ninkaana raadinayna anaka meesha ku jira oo naga soo weeraray. marka maxaa la yaab leh 2 askari waa dhimatay midna waa la laayahay oo midka laayahay xagu aaday gataalkii qaatay kula gataalkii urku soo dhacay mid waa kala fadhiinay ma la arkin ba qaraxyadii waaweyn oo dhici jiray xawal waa bogtay mid laba la arkay beedkooda 15 way dhaawacmeen. Iiraan waxa leedahay asbaar waay xisaabtaan mar kale iskeeni doontaa iska daayadig. haddaba markaan tusoo wararkii ugu dambeeyay haddaba waxaa la sheegay warbixinta ku bilaabanaysa kadib markii la sheegay 2 ka mid ah askarta Mareykanka in lagu dilay Urdun. ciidamada Mareykanku waxay bilaabeen weeraro culus oo dhinaca cirka ah oo cusub oo ay ku qaadeen saacadihii la soo dhaafay Iiraan ay ku qaadeen. Trumpna wuxuu ka hadlay askarta la dilay iyo uu qiray isaguna wuu sheegay. haddaba ciidamada Mareykanka ayaa sabtidii xalay waxay bilaabeen weeraro cusub oo dhinaca cirka ah iyagoo ilaa saakay ku qaadayay Iiraan. weeraradan ayaa waxaa la sheegay inay ka dambeeyeen iyagoo kaga aargudanaya kadib markii la soo sheegay Urdun in lagu dilay qaar ka mid ah askarta Mareykanka, kuwa kalena lagu dhaawacay. waana markii ugu horeysay la leeyahay askar Mareykan la shaaciyo weerarada ugu dambeeyay tan iyo markii hadeer ay bilowdeen toddobaad in la soo sheego askarta Mareykanka inay dhinteen. taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa waxa uu bilaabay weeraro culus oo isaguna uu kaga jawaabayo arrinkaas. wakaalada wararka ee Tasniim ee Iiraan ayaa sheegtay in ciidamada Mareykanka ay weeraro ku soo qaadeen Iiraanna ay wado inay iska caabiso weeraradaas oo lagu soo qaaday. wararku waxay sheegayaan in Mareykanku ay sheegeen 2 ka mid ah askartooda inay dhinteen, midna la waayay 15 kalena
ay markaa weerarkaasi ku dhaawacmeen sida wararku ay sheegayaan. marka hawshaas marka halkaas markay marayso dooda marka timid Mareykanka dhacdiisii dood ayaa ka timid. waxaa la yiri aawe hanaankii difaaca Mareykanka, difaaci Mareykanka qatarta ahaa aawe sidee saldhig Urdun ku yaala. fiiri Urdun iyo Iiraan iskuma dhawaa, Iraaqa u dhaxaysa inuu dhulkan soo dulmaro waa Suuriya iyo waxaan dhan soo dulmaro gantaal ilaa intaa soo socday oo Iiraan laga soo riday oo wadamada soo dulmaray aawe wixii ka hortagi lahaa. waa su'aal weyn marka droniskan Iiraan ay ka soo ridayso dalkeeda oo wadamadan soo dulmaraya oo Urdun imaanaya oo askarta Mareykanka ku dilaya aaway hubkii Mareykanka difaaciisa meesha yaala aaw. marka su'aal cajiiba waay. marka Al Jazeera ayaa warbixin cajiiba ka qortay, waxay ciwaan uga dhigtay sidee diyaaradaha droniska Iiraan ay markaa uga gudbeen raadaarada casriga ee Mareykanka iyagoo markaa ku sii jeeday Urdun. haddaba sheekadan markaa cajiib waayo. warbixinta waxay leedahay kadib markii la sheegay ku dhawaaqista Iiraan ee ah inay bartilmaameedsatay saldhigyada military ee ku yaala Urdun ee Mareykanku leeyahay iyo dilkii xigay ee la soo sheegay ee askarta Mareykanka in halka lagu qaramsaday sida ay markaasi sheegtay Washington, iyada oo aan la cayimin sida ay wax u dhaceen iyo sida goobtu wax uga dhaceen. inkastoo ay sheegeen gantaalaha iyo diyaaradaha droniska Mareykanku inay saldhigga gaareen oo ay ku dileen askarta Mareykanka ah. haddaba nin generaal oo la yiraahdo Sareeya Guuto Ilyas Al-Hanna oo u waramayay telefishinka Al Jazeera, khabiir militarina ah oo dhanka istaraatiijiga ayaa soo bandhigay falanqayntiisa xaaladda hadda jirta isagoo sharaxaya nooca horumarka ay samaysay Iiraan. wuxuu cadeeyay in gantaalada Iiraan ee gaaray bartilmaameedyadoodu aysan ahayn kuwo sahlan, tusayna Mareykanka waji cusub dagaalka inuu galay iyo in laga horeeyo tiknoolajiyada Mareykanka ee wax iska caabinta gantaalaha kadib markii gantaalaha Iiraan ay si hoose uga duseen hanaankii difaaca xeyndaabka adag ee Mareykanka uu lahaa, iyagoo markaa halkaasi gaaray oo askarta Mareykanka halkaas ku waxyeeleeyay. marka ninka generaalka marka wuxuu leeyahay meeshan waxbaan arkaynaa, waxa aan arkayna waxa waaye inaan marnaba la dhayalsan karin Iiraan. wuxuu yiri Iiraan waxa ka hadlaysaan u fiirsada Urdun ka hadlaysaan dad lagu laayay, waxa ka daran oo yiri meelahan kale waxa la qarinaa Kuwait iyo Bahrain iyo dhulkan waxa ay ugu noqonayso Iiraan waxa meesha ku jira ee ku qarsoon ayaa waxa yiri wax la yaab leh ah. marka meeshaas wax ka soo baxay. marka wuxuu yiri meeshan awood aan la isu sheegtay Mareykanka waa la jabsaday yiri, waa la jabsaday hanaankiisii difaaca inta meel la iska mariyay inta loo tagaa daakum laga dhigo. marka meesha kaliya ma ahane waxa soo bixi doono yiri ninka u fiirsada warar kala soo bixi doona meelahan la garaacayo khaliijka Mareykanku degan yahay iyaguna waxba ka soo bixi doona. haddaba marka warkiisii isla markii Mareykanka war soo saareen ay kaga hadlayaan ay leeyihiin isla sheekadan ninkan uu ka hadlay in aan waxba laga qaban karin droniska iyo gantaalaha Iiraan. haddaba markale marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay ee sheekada iyana laga qoray. haddaba wargeyska la yiraahdo Ra'yul Yawm wuxuu leeyahay mas'uuliyiin Mareykan ayaa iyaguna waxay cadeeyeen Iiraan inay horumarisay usluubkeeda gantaalaha kuwaasoo ka gudbay hanaankii difaaca Mareykanka, waxaana arintani ay walaac fara badan ku abuuraysaa Mareykanka. waxaase la yaab leh mas'uuliyiinta Mareykanka ay sheegayaan in waxa ay soo rido Iiraan
aynay seereynayn oo mar si diqi ay ugu dhacayaan meel alla meeshay rabtay ku dhufanaysaa iyadoo cid ka hortagta jirin. haddaba warbixinta wargeyska way sii socotay waxaa leeyahay mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa xalay sabti ahayd waxay sheegeen gantaalaha Iiraan ay soo riday awood ahaan inay ka gudbeen hanaankii difaaca Mareykanka ee u yaalay gobolka Bariga Dhexe. haddaba warbixintan nimankan Mareykanka ah waxaa baahisay sida warbixinta lagu sheegayo wargeyska weyn ee Mareykanka ee la yiraahdo Wall Street Journal oo soo xiganaya mas-uuliyiinta Mareykanka. mas-uuliyiintaasi waxay sheegeen in Iiraan ay si weyn u horumarisay hubkeeda gantaalaha iyo droniska kuwaasoo ay wax ka qaban la'yihiin hanaanka difaaca sawaariikhda Mareykanka ee wax difaacaya ee u yaala gobolka. u fiirsada halka marka maxay kaga baxay wixii naloo sheegayay maalmihii hore gantaalihii Iiraan ay soo riday waa ka hortagnay. Kuweyda waxay leedahay 10 gantaalan soo riday. Urdun waxay leedahay diyaaradaha qaranamsada. waxaasu nimankan Mareykanka oo wargeyskooda u waramayay Wall Street Journal Mareykanka wargeysyada waaweyn waxay leeyihiin waxaas yaa lidii sheegay adeer gantaalihii Iiraan iyo droniskoodii waxba waa ka qaban laana waliba darabaadkoodu bidiqah ku dhacayaan. maxaa waaye gantaala la soo rida meeshii ay rabtay ku dhufareen guriga qolka ay rabtay kaga dhufaraysaa Iiraan. marka arintaa marka waxa waaye technology aad u sareeya la isku dagaalamaya. asagoo diyaaradu soo qaadanaya waxbuu soo ridaya uu baxaya ayagu laakiin maxay ciyaarayaan tactica ciyaarayaan. tacticadaas waxa waaye gantaalkoodu inuu saareeyo marabaan waa la soo ridaa nag meesha lagu dhufanayo waaye. dadka kale wararka kale soo baxay nimankii Israa'iiliyiinta ah waxaa la yiri waa xeedanayaan waxay diyaarsanayaan waxay leeyihiin meelihii aan ku garaaci lahayn Iiraan waa noo diyaarsan yihiin diyaaradaheeni waa diyaar shidaal aan ku shubanayna kana sameeynayna waa dagaalka waa galaynaa haddii Iiraan soo weerarto furay ula badalaalin. nimankaas wax ka furaysa malaha leeyahay marka maanta dhan xeedashay ku jiraan haddii la soo weeraro Iiraanna waxbay wadaa hawle wadataa. Urdun iyo Kuwait iyo saldhigyadan Mareykanka oo meesha ukumaha u dhigtay wadamadan islaamka inay qaramsateen rabtaa ka cayriso meeshaas. qabaray garaacaysaa waxay garaacaysaa maaragtay Bahrain waxay garaacaysaa waxaanu dhan garaacaysaa. marka hawshaas halkaas ay maraysaa. sheekada kale ee cajiibka ah soo korortay waxa kamid ah Mareykankii xalay barnaamijka soo qaadanay maxaa ku soo qaadanay muwaadiniintiisa u safraysa Israa'iil inuu yiri ma u safri kartaan halkaas waa halis. hadda saakay maxaa la marayaa muwaadin kasta oo Mareykan oo adduunka jooga adduunka ma aha Bariga Dhexe ma aha adduunyada xawla العالم hay Israa'iiliyada. Iiraan waxay awood u leedahay inay weerarto meel kasta oo adduunyadu Mareykanka joogo. waa la isayaa meel kasta Amerikaan joogo waa la qaramsan karaa ee taagta Mareykan. meel kasta Mareykan joogo maxaa meel kasta oo Mareykan joogo nimanka waa imaan karaan. nimankanu ma sahlana yaa dhahaya Mareykan dhahaya ayadu tuso marka. haddaba telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa war rasmi ah oo soo saartay waxay leedahay fi anhaa'il caalam adduunka muwaadiniinta Mareykanka ee jooga digniinay u dirtay is-ilaaliye tiri xaaladda Bariga Dhexe cirkay gashay. haddaba marka maxay leeyihiin wasaaradda arrimaha dibadda waxay leedahay waxaa laga yaabaa jamaacaad iyo kooxo ay leedahay Iiraan inay weeraro ku qaadaan kuwaasoo Iiraan taageersan masaalixda Mareykanka caalamka uu ku leeyahay inay weeraraan oo markaa ay beegsadaan Mareykanka. marka dadka Mareykanka ahi ha digtoonaadaan waxyaabo غير متوقع dhici kara oo la filay. ماشي marka Mareykan gacan u taag gabgabtan iyo
diyaaradaha la kiciyay waxbaa la sameeyay buundooyina la burburiyay waxaas iska dhiga meel annaga waxa qiimeynayna akhrinayna waxan soo baxaya fi anxaa'i alcaalam jamaacaad iiraan ay leedahay ayaa weeraro qorsheynaya inay ku qaadaan danaha Mareykanka oo caalamka kulay caalamka dilira maxay meel kasta waa Soomaaliya xalana iyo dhulkaan kullu soo galaan jugta la iska gelina bardhow marka hawshaasu halkaas marka baraysa marka waa inaan la soconaa adduunka waxa ka dhacaya marka saakay marka jugta la isku hayaa waxa kale oo la weeraray Kuwait waxa la weeraray Bahrain waxa soo dhan waa la garaacay Urdun oo hinta socota diyaaradiga lagu daabulaya lagu leeyahay wixii dhaawacmay iyo wixii kale iyo saldhigii waa lagu kala tagay ma fahmaysaa marka maxaa soo gaaray Iiraan iyada waxaan rabaa moogtahay inaan idin bayaaniyo waxa la qorayo warbaahintu Iiraan iyadu waxa soo juga geysatay maxaa soo gaaray waxa leeyahay Iiraan marka laga reebo sheegashada Mareykanka inay burburiyeen awoodii Iiraan laakiin Iiraan wax ka burburayba male gantaal inay damacdo inay rido waa ridaysaa drones inay rido markay rabto way ridaysaa diyaaradihii Mareykanka hawada Iiraan way gali laayihiin bannaankay ka duqeynayaan drone nistii Mareykan leeyahay ee gudaha u gasha dhulkay soo dhigaysaa Mareykan muxuu ictimaadayaa marka sida Iiraan oo kale isaguna gantaalo soo ridayaa gantaalahaas ku garaacaya marka xaalku marka halkaas uu maraa awood way qaybta marka ugu dambaysa barnaamijka aayatullaahi Iiraan ayaa saakay waa dhaarana inta yiri ayaa Trump iyo kooxdiisu wuxuu yiri bas waa heshiis dambe ma bajiruna hadayna meeshan meydkiina ku jiidin wax kale ma jiraan haddaba marka aan tuso warkii ugu dambeeyay arikaa laga qoray haddaba waxa leeyahay ninka la yiraahdo Khamenei wuxuu wacd ku maray Mareykanka inuu siin doono duruus uu san weligiis iloobi doonin weerarada Mareykanka uu ku hayo Iiraan waxay ka dhigantaa yiri Trump heshiiskii uu isfahamka uu nala gaaray inuu san wax qiimo ah lahayn haddaba waxa warbixintu way sii socotay oo la leeyahay aayatullaahiga Iiraan ee Jamhuuriyadda Islaamiga aayatullaahi Mujtaba Khamenei ayaa sheegay inuu qori doono Mareykanka duruus uu san weligiis iloobi doonin oo uu markaa kala kulmi doono ciidamada Iiraan Mujtaba Khamenei wuxuu leeyahay darsi waxaan u dhigaynaa uu san weligiis iloobi doonin Trump iyo Mareykan midaan ku dhigno arka wax heshiis la yiraahdo ma jiraan la qiimata leh heshiis dhan naga dhaaf ninkan meel isaga soo harayna u taagay ninkii maalin hore saddex maalin ka hor aan waxaan arkay ninkan isagoo Trump uu leeyahay xogta aan hayno 90% ninka maba noolaba uu lahaa Mujtaba uu qaadaya Mujtaba hada wuxuu leeyahay noolaada ama yuusa aakhiro ka soo hadlayaa darsiga lagu dhigo meeshan wax heshiis ma jiraan isfahamkii horena la qiimata leh wax qiimo uu leeyahay male حال مركز هالكاس مريا ساكي ماشى حاجة توقتها wax mari kara hurmusna male waata xal barnaamijka ku soo qaadanay afar markabo Mareykanku soo maray midday ku dhigtay Iiraan dhibic shidaal iyo gaas oo meesha mari karta ma jirto Iiraan way u xirataa meeshaas Mareykanka saldhigidiisa saasay u gumaadaysaa waa aragteen askarti qaylada ka yeeris marka xaajo halkaas maray wixii fakar adiga ku darso aragtidaada waxay sheekadu meesha ku dhamaad doonto loo soo qoraa adiga ku aragtidiina iyo waxay idin la tahay barnaamijkaygi saakay waa naga inta aan mar kale kulmayno la garay oo shirgaray barnaamijka mar walbana ku xirnaada barnaamijyadeena xaqiiqada ku salaysan inagoo idin la wadaagna macluumaadka ee wararka aan soo gudbinayno halka ay ka yimaadeen inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo